السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداyaal ku soo dhawaada warkii oo wadaad khaniisi soo matagay. Waxa maanta istaanka dameeraha ee awaare ka soo degay wasiirkii kufsiga iyo dhaca agoonta mudane Cabdifataax Futaburo iyadoo uu ujeedada safarkiisu tahay sidii uu u wacyigelin lahaa gidaar jiifta xaliimooyinka rimiyaha ka cad. Shambu xayraanka oo sii qaaliyoobay iyo danyarta reer Hargeysa oo ka mudaharaadaya arrintaasi balse aan cidiba dhegba u dhigayn. Dhinaca Jabuutina madaxweyne Ismaaciil Cumar Siigeyste oo saaka calooshiisa laga helay carruur nool waxaana halkaas si degdeg loola cararay isbitaal ku yaala hoyga tumashada ee Paris. xaliima halnaas ku yaalo oo suuqa bakaaraha dhex wareegaysa sidii rifool waxaana halkaasi u daawasho yimid madaxweyne Xasan Shaydaan iyo xaaskiisa kooca Iblis kooca kili gubtay. tartan dhex maray dacwo sumaysan iyo diin ceelaad iyadoo halkaasi ay guushu ku raacday diin kadib markii uu dacwada ku dulkufay halkaasna saddex carruur kaga soo horguf caasha cirweyn iyo hodan hindhiso oo hore uga tirsanaan jiray naasleyda gurimageysada ayaa maanta dib ugu soo laabtay kadib markii ururku u diray dacwad tuugsi ah. waxa maanta dugsiga tababarka ciidamada xabaqlayaasha ka buugjariyay difcadii saddexaad waxaana halkaasi bilad sharaf la'aan ku guddoonsiiyay Korneyl Qasaare. daafuurta reer berbera oo ka cabanaya qooq iyo kulayl balse aan war u ahayn sababtu inay tahay kalluunka nool ee ay isku daldalayaan sidii lax dhunkan. kalfadhigii 900 oo ka furmay guriga baarlamaanka ee been abuur ayaa maanta sii socda iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiirro ka kala socda warshadaha baqti ku nool iyo balaayo xijaaban. duqaanka oo ku soo badanaya degmooyinka qabri bayax aw barra iyo sheedheer iyadoo ay shacabku ka soo jeedeen degmooyinku ay eeda saarayaan tareerka ka soo qaxday wardhiigle iyo warta dagaalka. daawadayaal ha idinku taagnaato war wixii tamartaydu xambaaraysay haatana dhanka waraaqaha salaamaha aanu kacay. haye waxaan halkan idinku hayaa warqad wuxuu yiri xirsi aw jaamac jahanama la hageeyo waxaan halkan salaanaya dawada xiiqa daruuraha dushooda u marinaya marwadayda muran soo kuuday wiilkayga weel fakatay oo jooga buul carriga indha quraanjo ee shiinaha. warqad kale waxay tiri ismahaan iimaanka Allah ka qaaday waxaan halkan salaanaya sunta kobraha hawada u marinaya saaxiibada farxiyo faarax fantaha dishe iyo saygeeda sumal silcsan oo ku nool magaalada Jigjiga gaar ahaan xaafadda Maquraacato. hayo warqad kale waxay tiri xamdaxay xishoodka Allah ka qaaday waxaan halkan ku facaan daawo lahayn iyo uu saqarmuun hawada u marinaya macooyada midi gubatay oo degan magaalada Minneapolis gaar ahaan xaafadda Cayda ama Sidor loo yaqaan. daawadayaal isna waxa halkaas ku basbeelay barnaamijkiisa qorta iyo midixda aan isku walaaqay iyo anigoo idila socodsiinayo wariye baxta ka doonto joog qaafto fuu imikana iga hooyo makaatiladii la magac baxday iga leeyahay warooda gabadha shaah nooga soo qaado u sheeg cawradeeduna way muuqataa marada qabso ku dhaqofta oo miyadan hada ogeyn maxaan ogaan lahaa way iskaamu way ka leersadaano kolka yar kululaada iyo kolka xanaaqad iyo kolka cimilada kulushahay waariya maansho waa kuwan marada kor urursado kolka fadhiisanaya tallaa ayaa ku tusa wala waxa la kolka musqusha galaan iyaga afuufaya iska daa maanta waxba bartay halka ma ka afuufisoo ma kol alla kolka naagteedu cadhooto ama kululaatada oo hada kol alla kolka xaasiga xanaaqada soo halka yar ma afuufo waru kaadi hadda waan hurulada dukaankiisa uga soo amaanaya xabad baruuxada